booliska galmudug gaar ahaan qaybta miina baarista ayaa maanta qarxiyay miina maalin ka hor ay ka soo saareen gudaha magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug. miinadan oo ahayd nooca taangiyada kuna aasneed gudaha magaalada Cadaado oo la geliyay xilliyadii dagaaladii sokeeye ayaa waxaa booliska ku soo wargeliyay dhalinyaro doonaysay inay tubabiyood geliyaan xaafadda ay miinadan ku aasneed. booliska galmudug qaybta miina baarista ayaa si nabad ah ugu guuleystay inay miinadan ka soo saaraan halkii ay ku aasneed waxa ayna saaka ku qarxiyeen duleedka magaalada Cadaado. maayarka degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan, taliyaha booliska galmudug Cabdicasiis Yuusuf Aadan Dhagabadan, taliye xigeenka booliska qaybta gobolka Galgaduud Cabdi Maxamuud Maxamed, taliyaha booliska qaybta miina baarista galmudug Maxamed Cabdi Maxamed ayaa ku sugnaa goobta boolisku ay miinadan ku qarxiyeen. taliyaha qaybta miina baarista booliska galmudug laba xidigle Maxamed Cabdi Maxamed Maxamed Dheere ayaa ugu horeyn sharxaya qaabka ay shacabku ugu soo wargeliyeen miinadani. salaam baadiye bahashan halkan taala ilaahay baan ugu guuleeyay inaan ka badbaadin nafteena iyo nafta ummadda Soomaaliyeed waxayna ay ku jirtay meel wada ah oo ku soo fuushay laamiga marka ilaahay baan hadda iskale aan ummadan ugu badbaadinay anagu nafteena aan iskaga badbaadinay. taliyaha booliska galmudug Cabdicasiis Yuusuf Aadan Dhagabadan ayaa ugu baaqay shacabka inay booliska la shaqeeyaan. miinadan anti taangiga ah oon kor taagannahay waxaa laga soo bixiyey meel laamiga u jirta 3 tilaabo oo magaalada bartamaheeda ah jidka laamiga oo isku xira Soomaaliya oo dhan meel 3 tilaabo u jirta wali wada kale ka leexatay ku jirtay. ilaahay mahadiis wiilal dhalinyaro ah oo tuubo biyood meel ka qodanaya ayaa arkay saraakiisha booliska u soo sheegeen annaguna waxaan u dirnay laanta miina baarista iyo qaraxyada oo horay loo soo tababaray waana ku guulaysteen watan hortaalla way soo bixiyeen waxay meesha ku jirtay qiyaastii ilaa 30 sano. maayarka degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole ayaa ugu horeyn u mahad celiyay shacabkii miinadan ku soo wargeliyay booliska waxa uuna shacabka degmada Cadaado ku booriyay inay booliska si dhow ula shaqeeyaan. dadweynaha waxaan u sheegaynaa miinooyinkan ay waxraadiya ay ku jiraan deegaamada dhan way ku jiraan marka waxa la rabaa sida wiilashaas arkay oo kale oo isla markii booliska waxay inta dadka meeshii ka celiyeen ay booliska wargeliyeen marka sidaas oo kale waxa la rabaa qof walba markuu arko waxa inuu isla markaas uu la xal oo qaybta ku shaqada leh uu la xiriiro oo dadkana laga celsho marka waa mahadsantiin aad iyo aad waa mahadsantiin cid kasta oo barnaamijkan ka qayb qaadatana uga mahad celinayna waxyaabaha qarxana meel kasta lagu arko in dadka loo soo sheego lagana fogaado ciidan loo tababaray hadda noo jooga oo waxaas oo aad u yaqaan oo meeshii jooga inta ugu tagan ku soo qarxinaya marka waxa la rabaa in ciidankana la soo wargeliyo lagana fogaado oo qofku markuu arko asoo inuu qaado lama rabo meesha uu ku arkay inuu uga tago oo dadka inta u yeero oo meesha ciidanka la waxa la rabaa laakiin qofka haduu yiraahdo anaa soo qaaday waxa laga yaabaa qaadidaas qaaban loo qaadina jiray baabuurka saas loo saaraa jugtaas inuu ku qaraxdo waan dhacdaa inuu ku qaraxdaba. Cabdirasaaq Al Cadaala warbaahinta goobjoog magaalada Cadaado.